guddida dib-u-dhiska madaarka magaalada Burco ayaa maanta ku dhawaaqday deeq buuran oo lacageed oo ay shaqaalaha dawladda ee ka howlgala gobolka Togdheer ugu deeqana dhismaha dib-u-dhiska madaarka magaalada Burco. guddidan dib-u-dhiska madaarka Burco oo ah guddi madax bannaan oo laga soo xulay dadweynaha Burco ayaa waxay deeqdana shaqaalaha dawladdu ay bixiyaan ay ku tilmaameen inay dhanta 7 milyan iyo 175 kun oo shilinka Soomaaliland waxaana deeqdaasi ay maanta ku shaaciyeen kulan toddobaadle oo ay madaxda maamulka gobolka Togdheer ay isugu yimaadaan maalin kasta oo Arbaca. Sheekh Cali Maxamed Axmed oo Sheekh Cali Mawlid oo maanta ka hadlayay kulankii madaxda laamaha dawladda oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu xuseynay lacagtan oo baahi badan ka dabooli doonta dib-u-dhiska madaarka Burco ay u quureen shaqaalaha dawladda kuwaasi oo ay abaabuleen madaxda wasaaradaha xubno ka mid ah. gudoomiyahana guddida dib-u-dhiska madaarka Burco mudane Sheekh Cali Mawlid waxa kale oo warkiisa ku xusay inay lacagtaasi ay loogu tabarucay dhismaha madaarka Burco ay 50% ay bixisayaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. mudane Sheekh Cali Mawlid isagoo tafaasiil ka bixinaya sida ay u soo gashay lacagtaasi ayaa waxa ka mid ah hadalkiisii shaqaalaha gobolka iyo ciidamada naftirkooda marka lagu daro waxay isku dhantahay 77 milyan 175 kun oo Soomaaliland shilin ay bixiyeen. waxa xusid mudan labada wasaaradood ee ugu xisaabta badnaa waxay ahayd wasaaradda caafimaadka oo 4 milyan iyo ziyaado laakiin waxa la gaari karin wasaaradda waxbarashada oo almost nus bixisay 75 kun. sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarji ayaa isaguna waxa uu mahadceliyay guddidan iyo waliba shaqaalihii bixiyay lacagtaasi waxaanu xusay inay buuxisay kaalin loo baahnaa. gudoomiyahana gobolka Togdheer waxa kale uu ballanqaad ka sameeyay inaanay shaqaalaha dawladda iyo maamulkooduba aanay gacanta ka laaban doonin oo aanay ku ekaan doonin intan ay bixiyaan oo kaliya. aniga jooginba lacagtii halkii aad ku soo bixisaan way ku dhacday amaanadiina way fushay waxaana noqotay record ay ku dhaafnay dhammaan gobolada intooda kale waxaana ku waalinayaa guud ahaan gobolada intooda kale inay ku daydaan sida shaqaalaha Togdheer inay ku dayasho tahay guud oo ay qaran hoose ugu noqdeen. tabarucaadkana shaqaalaha dawladdu ayaa waxa uu qayb ka yahay howlgal xoogan oo dib loogu dhisayo madaarka magaalada Burco iyadoo haatan ay ka socoto madaarkaasi gudihiisa hawlo badan oo ay ka mid tahay mashruuc lagu baneynayo dhul balaaran oo lagu kordhinayo geegida diyaaradaha. mashruucaas ay dabada ka riixayso hay'adda cuntada adduunka ee WFP isla markaana ay fulinayso urur wadani oo loo yaqaan TIGAD. Yusuf Warsame